Manchester United ayaa wada hadallo la furtay Barcelona oo ku saabsan iibsashada Frenkie de Jong iyadoo kooxda Isbaanishka ay haysato dhaqaale xumo taasoo la micno ah iibinta ciyaaryahan khadka dhexe ah oo lagu qiimeeyay 85 milyan oo euro oo u dhigata 72.4 milyan oo pound. De Jong oo ka cagajiidaya inuu ka tago Barcelona uma arko United inay tahay meesha ugu muhiimsan ee uu ku wajahan yahay haddii ay tahay inuu baxo. kamid ahaansho la'aanta tartanka Champions League xilli ciyaareedka soo socda ayaa caqabad weyn ku ah inay ku qanciyaan 25 jirka inuu ku biiro iyadoo jiraan kooxo kale oo xiiseynaya da'yarkan. Maamulaha United Erik ten Hag ayaa De Jong laba xilli ciyaareed ku soo leeliyay Ajax horyaalka Eredivisie ee Dutchka 2018 ilaa 19. Ten Hag iyo John Marto agaasimaha kubadda cagta United ee hogaaminaya wada xaajoodyada ayaa rajaynaya in xiriirka shaqo ee hore ee guusha leh uu ka caawin karo in lagu qanciyo De Jong inuu saxiixo haddii heshiis lala gaaro Barcelona. khadka dhexe ee United ayaa ahaa mid daciif ah xilli ciyaareedyadii ugu dambeeyay iyadoo Nemanja Matic uu ka tagay waxaana la xaqiijiyay bixitaanka Paul Pogba Arbacadii. Ten Hag ayaa kaliya Fred iyo Scott McTominay ku haysta afka hore ee weerarka. Pogba waxa uu Juventus kaga soo biiray 2016 rikoor 93.2 milyan gini waxaana uu si xor uga tagayaa United marka labaad. Laacibka reer Faransa ayaa diiday horumarka Manchester City waxaana laga yaabaa inuu ku laabto Juventus laakiin waxaa sidoo kale doonaysa Paris Saint-Germain. fariintiisa sagootinta ah ee uu soo dhigay baraha bulshada waxay kor u qaadi doontaa shakiga ku aadan sida ay u tixraacayaan taageerayaasha. waxaan dareemayaa sharaf inaan ugu ciyaaray kooxdan. Pogba ayaa soo qoray xusuusi iyo daqiiqado badan oo qurux badan laakiin waxa ugu muhiimsan taageerada aan shuruudda lahayn ee taageerayaasha. mahadsanidin. United ayaa tiri qof walba oo kooxda ka tirsan wuxuu jeclaan lahaa inuu Paul ugu hambaliyeeyo waayihiisa guusha leh waxaana ugu mahadcelinaynaa waxqabadkiisa Manchester United. waxaan u rajaynaynaa wanaag oo dhan talaabooyinka xiga ee safarka cajiibka ah. Ten Hag ayaa sidoo kale damacsan inuu Julian Timber ka soo iibsado Ajax. difaaca ayaa laga yaabaa inuu ku kacayo 50 milyan oo euro. 20 sano jirkan ayaa haatan u tixgeliyay United koox uu jeclaan lahaa inuu ku biiro. United ayaa sidoo kale xaqiijisay in Jesse Lingard uu ka tagay isagoo soo afjaray 22 sano oo ku sugnaa kooxdii uu ku biiray isagoo iskooley ahaa.